tani waa sheekada Maahir Yare oo ah dhallaankii ugu muddada dheeraa ee ku jira qaybta NICU-da isbitaalka Kalkaal. Maahir ayaa soo qaatay 55 maalin oo NICU-da ugu jiray xaalado kala duwan oo ay ka mid tahay in markii uu dhashayba uusan si hagaagsan u qaadan karin neefta, taasoo walwal badan ku haysay waalidkiisa. Bismillah walaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ugu horeyn waa idin mahad celinayaa sida quruxda badan aad qayb uga soo noqoteen programkan. runtii dhammaan maanta waxa u taagannahay inaan sogootinno Maahir wuxuu ahaa bukaankii muddada badan ee noo joogay qaybta ayadoo ay jiraan bukaano badan oo muddo ay noo joogeen laakiin isaga wuxuu noqday bukaankii ugu muddada dheeraa runtii age ahaanna marka loo fiiriyo ugu yaraa isagoo soo maray marxalado aad u kala duwan oo runtii adag wuxuu soo maray marxalad uusan qaadan karin hawada ama oksijiinka si caadi ah uusan u qaadan karin ayadoo ay ku jirtay tubo marka hawada uu ka qaato mashiin uu ku xirnaa alxamdulillah ugu dambeyn ilaahay nagu guuleeyay inuu ka baxo marxaladaas ayadoo tubadaas inta ku jirtay laga sii yimaado oo runtii ka qayb qaadanaysa adkaanaysa sanbabada la yiraahdo pulmonary surfactant waxaa jirtay marxalado badan oo dhiig ku shubisa oo soo maray alxamdulillah hooshii ugu dambeyn ilaahay uu nagu guuleeyay waanu mahad celinayaa dhammaan dhaqaatiirtii qaybta ka ahaa dadaalkaas kalkaaliyayaasha oo runtii udub dhaxaad u ahaa hooshii la'aantoodii aan waxba qabsoomi lahayn howlwadeennada caafimaadka ee ka howlgala qaybteenna NICU-da ayaa ka dhigtay sidii wiil yar oo ay dhaleen maadaama ay xaaladiisa caafimaad ahayd mid aad u daran islamarkaana u baahnaa xanaanayn gaara la socod dhow iyo qiimayn joogta ah. Assalaamu calaykum anoo ah maamo Farxiyo maasha Allah inta ku dhalay wiilkayga caafimaadkiisa marka hore iyo haddeertaan hadda uu ii fiican yahay maasha Allah ewl saa'id oo ahay alxamdulillah si aad u wanaagsan liigu shaqeeyay maasha Allah si fiican liigu dadaalay khayr Allah siiyo. daryeelbixiyaasha qaybteena NICU-da ayaa xaflad sogootina u sameeyay Maahir Yare kadib markii uu soo caafimaaday iyadoo indhahooda laga garan karo maxabad ay u qabaan dhallaankan yar ee ay gacmahooda ku soo daryeelayeen muddada dheer. Maahir hadda wuxuu dib ula midoobayaa qoyskiisa isagoo caafimaad qaba wuxuuna sii wadan doonaa noloshiisa yare koraysa. waxaan u rajaynaynaa caafimaad qab wanaagsan iyo korriimo fiican. caafimaadkaagu waa mudnaanteenna.